مدن مدحوينه anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca guud ee agaasimayaasha waxaan kaaga mahadnaqayaa kulankan muhiimka ah ee aad fursad noo siisay inaanu maanta ku soo hor fariisano anagoo og ka dheregsan mashquulkaaga iyo hawlaha qaranka ee mid kale ay ka weyn tahay mudane madaxweyne haddaanu nahay agaasimayaasha guud waxa aanu dhammaantood heshiis ku nahay oo ku wada soconaa wada shaqeynta dhexdeeda iyo inaanu qaranka si hufan ugu shaqeyno anigoo runtii ka duulaya madaxweyne kuna howleedkayagii shalay ay soo qaban qaabisay hay'adda shaqaalaha dawladda iyo madaxtooyadaba waxay agaasimayaasha isla garteen in ay wada shaqeeyaan waxaana yeelan doonaan kulamo dhowrkii biloodba mar ah sida daraadeed madaxweyne haddii aad maqasho agaasimayaasha guud baa meel ku shiraya waxay kaliya u shirayaan waxa weeye qodobadan soo socda wada shaqeynta dhexdeeda ah qodobka koowaad wada shaqeynta iyo dardargelinta hawlaha qaranka laba in ama iskaashiga iyo qodobada wasaaradaha ka dhaxeeya ee loo yaqaano cross cutting issueska ama mashaariicda ay hay'aduhu dawladda ama wasaaradaha dawladda wadaagaan in ay ka wada shaqeeyaan hadba wasaaradaha ay bahwadaagta yihiin ugu dambeyntii mudane madaxweyne waxaanu kaaga mahadcelinaynaa in aad na magacowdo oo aad naga soo dhex xulatay guud ahaan bulshada sida daraadeed waxaanu ballan qaadaynaa in systemka dawladnimo iyo hoggaamintaduba aanu daacad u noqon doono kuwala shaqeyn doono daacadnimo iyo hufnaan laba waxaanu ku ballan qaadaynaa mudane madaxweyne in wasiiradaada sharafta leh ee aad u dooratay hoggaaminta wasaaradaha dalka in aanu si wanaagsan ula shaqeyn doono iyadoo markasta maanka lagu haynayo lana tixgelinayo xeerka kala xadeynta xukuumadda ee xeer number 71/2015 kaasoo si cad u qeexaya waajibaadka wasiirka iyo agaasimaha guud iyo xeerarka kale ee dalka u yaala saddex haddii ay dhacdo inaanu aragno talo ama ra'yi qarankan iyo dadkan idan ugu jirto in aanu kugu soo sinno mudane madaxweyne iyada oo dariiqeeda iyo guud ahaan borotokoolka dawladnimo aanu raacayno